haddaad rabtid inaad lacagta kula baxdo bank wire transfer. Bank wire transfer waa maxay? Waxa waaye in lacagtaada halkii Mastercard aad kula bixi lahayd in aad si toos ah kula baxdid bangi account aad ku leedahay bangiga ama Premier Bank ama IBS Bank ama Dahabshiil Bank ama Dar es Salaam Bank, bangi walba oo Soomaaliya ku yaalo ama bangigan cusub ee hadda soo baxay My Bank, kulli waxa waa isku mid, isku qaab ayaa kula bixi kartaa. Insha Allah asxaab fara badan ayaa iga soo codsaday muuqaalkan oo i dhahay ustaad waxaa muuqaal ka soo sameeydaa sida bank wire transfer lagu xiro, sida informationka loo geliyo, xogta la gelinayo bangiga, waxaas muuqaal nooga soo samee insha Allah adigoo buuxinaysid. Marka muuqaalkan waad ka sameeyay codsigeena waa tixgeliyay. Marka adiga waxaan ka codsanaynaa inaad like saartid muuqaalkana bilowga ilaa dhamaadka aad daawatid. Intaas kaliya ma samayn kartaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Asxaabta kusoo dhawaada channelka Somtic Academy. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida lacagta lagula baxo bank wire transfer, yacni sida lacagtaada lagula baxo bank wire transfer. haddaad rabtid inaad lacagta kula baxdo bank wire transfer. Bank wire transfer waa maxay? Waxa waaye in lacagtaada halkii Mastercard aad kula bixi lahayd in aad si toos ah kula baxdid bangi account aad ku leedahay bangiga ama Premier Bank ama IBS Bank ama Dahabshiil Bank ama Dar es Salaam Bank, bangi walba oo Soomaaliya ku yaalo ama bangigan cusub ee hadda soo baxay My Bank, kulli waxa waa isku mid, isku qaab ayaa kula bixi kartaa. Insha Allah marka asxaab fara badan ayaa iga soo codsaday muuqaalkan oo i dhahay ustaad waxaa muuqaal ka soo sameeydaa sida bank wire transfer lagu xiro, sida informationka loo geliyo, xogta la gelinayo bangiga, waxaas muuqaal nooga soo samee insha Allah adigoo buuxinaysid. Marka muuqaalkan waad ka sameeyay codsigeena waa tixgeliyay. Marka adiga waxaan ka codsanaynaa inaad like saartid muuqaalkana bilowga ilaa dhamaadka aad daawatid. Intaas kaliya ma samayn kartaa. Marka like, subscribe saar insha Allah, siina share gareeya, asxaabtiin u sii share gareeya. Okay. Marka bank wire transfer ula baxdo horta waxaa shardi ah inaad account ku leedahay bangiyada Soomaaliya ku yaala ama xataa dibadda ku yaalo. waxaa kaloo u baahan tahay in warqad address oo bangiga ku siiyo oo la dhahayo Swift code inaad haystid. warqadda insha Allah bangiyada Soomaaliya waa ka dalban kartaa waana ka heli kartaan hal raadsho. haddaadan haysan waxaa jira dhowr muuqaal aan uga hadlay qaabka dad badanna ka caawiya qaabka Swift code-kaas warqadda lagu helo. dad badan oo u sameeyay ilaa 200 oo qof in ka badan ayaa u sameeyay Swift code-kaas. Marka haddaad u baahan tahay in lagu sameeyana anaa ila soo xiriiri kartaan insha Allah. meelaha igala soo xiriiri kartaan WhatsApp-kana waa idin dhigi doonaa comments-ka iyo description-ka insha Allah. warqaddaas marka sidaas ku heli kartaan. Okay, intaas hadda ugu gudbo haddii kalena bangiga soo qaado. Okay, haddii waxaa jira meelo bangiyaasha ay soo ogoleen, tusaale ahaan dadka Somaliland joogo kale iyo gobolada kale way ku adag tahay. Marka dhib ma lahan, haddii bangiga account ku leedahay waa lagu sameyn karaa, dhib ma lahan insha Allah. Okay, muuqaalka u guda galeynaa. horta bank wire transfer ugu xirtid waa inaad soo gashid MT4 kaaga oo client-iga
waa inaad soo gashid oo imaadid FX Premise account-ka ku leedahay. Broker kale haddaa ku leedahay the same way ayaa maaragtay isku qaab waa. Marka imaadid waxaad aad dooranaysaa saddexda xariijiyo is dul saaran oo dhanka right midigta xiga ayaa taabanaysaa. Okay, markaad taabatid kadibna waxaa ku soo baxayo taabkan. Kadib waxaa kasii dooranaysaa withdrawals ayaa calaamada balasta ayaa taabanaysaa. Markaad taabatid balasta waxaad dooranaysaa withdrawal info. Ujeedaan withdrawal info kaas ayaad dooranaysaan. Okay, markaa kaa doorataan wuxuu ku keenayaa page-kan ayuu ku keenayaa. Halkani waa meesha ugu muhiimsan markii aad gelinayso Bangiwire information, xogta Bangiwire-ka, xogta bangiga ayaa la rabaa inaad gelisid. Okay, marka ugu horeyso waxaa sameynaysaa wadanka ayaad dooranaysaa. Hadda aniga Soomaaliya ayaa ii dooran. Soomaaliya ayaad dooranaysaa. Meesha ku yaalo bangigaaga waa inaad dooratid. Meesha ku yaalo wadanka ku yaalo bangiga waa inaad dooratid. Okay, waxaa ku xigo bank payee name. Bank payee name waxaa waaye qofka account-ka ku leh bangigaas magaciisa. Tusaale ahaan adiga magacaaga, magac kugu qoran bangigaaga markaa isku diiwaan gelinaysa account furanaysa, magacaas ayaa halkaa ku qoraysaa. Marka waxaa la dhahay waa inuu magacaaga oo rasmi ah ku qoran yahay. Okay, waxaa la dhahay magacaaga ahayn oo sida uu qoran yahay waliba account-kaaga haddaa gelisid la dhahay lacagta kuma soo baxayso. Marka sida saxda halkaa u geli magaca bangiga kugu qoran. Meeshan kale waxaa ku xiga bank name. Qaybtan oo bank name waxaa gelinaysaa magaca bangiga ayaa gelinaysaa. Qaybtaas waxaa gelinaysaa magaca bangiga. Hadduu yahay Premier Bank ku qoraysaa. Hadduu yahay IBS ku qoraysaa. Hadduu yahay My Bank ku qoraysaa. Hadduu yahay Salaam Bank ku qoraysaa. Hadduu Dahabshiil yahay, hadduu Daarusalaam Bank yahay, haddii banki kale oo caalami yahay, kulli bank name magaca bangiga. Okay, qaybtaa waa isla fahmay. Waxaa inoo xiga bank address. Meeshaan dad badan waa ku wareereen. Waxa weeye branch-ga uu ku yaalo bangigaas. Ma fahantay? Waxa weeye branch-ga uu ku yaalo bangigaas. Aniga waxaa ii gashan kilometer 4 Muqdisho Soomaaliya oo ku yaala xarunta bangiga. Hadduu ku yaalo Hargeysa meesha halkaas ku qoraysaa. Waxaana shardi ah inaad halkaa ku qortid bangigaaga meesha ku yaalo ayaa gelinaysaa. Waxaa kaloo kuu soo xiga qaybtan waxaa gelinaysaa bank account number. Account number-kaaga bangiga ayaa gelinaysaa. waa wada garanaysaan taas ayaa umaleeyaha. Account-ka marka dad badan waxaa jira aqoon darro may ka tahay, isyaalyaal may ka tahay ma aqaan. Dad waxaa jira isku qaldaayo account number-ka iyo lambarka dheer ay ku qoran Mastercard-ka ee 16 digit ka kooban way kala duwan yihiin. Kaasna waxaa waaye Mastercard number, kan account number ay kala yihiin. Midka account number-ka 12 digit ka kooban. Marka account furanayso warqad yar oo boono ah oo magacaaga iyo account number-ka ku qorayso laguma siin. Kaas marka lacag la bixi sidoo kale cash lambarka account-kaas aad qortid mar walba ayaa halkan gelinaysaa. Okay, si lacag si toos ugu soo dhacdo bangigaaga, si lacag si toos ugu soo dhacdo account-kaaga. Okay, waxa kaloo ku soo haray bangi Swift code. Bangi Swift code halkan ayaa ku qoraysaa. Warqadda Swift code-ka markaa soo qaadatid lambarka Swift code-ka ayaa halkaa gelinaysaa.
8 digit oo ka kooban yahay 8 digit ama 6 digit dabcan adiga wuxuu ka kooban yahay halkaa geli insha Allah marka ha ku wareerin bangi swift code maxaa la dhahaa warqadda swift code waxaa ku dhaha bangiga waa inaad marka hore kasoo qaadato ma fahanti haddii aad warqadaas haysanne dabcan dadka ma aragtay anigoo kale dadka waa ka caawi kara waa ku sameyn karaa laakiin waxaa shardi in account ku leedahay bangi markaas baa ila soo xiriiri doontaa insha Allah wax yar oo iska bixinaysaa khidmad ah iska bixinayda dabcan waa ku lagu sameynaa dhib malaha doesn't matter xataa hadaad dibadda joogtid waa ka walwalnina okay waxa kaloo kusoo hora qaybtan dad badanna way ku wareeraan banki ipan banki ipankan wax kale ma ahan waa lambar dheer waa lambar aad u dheer marka oo maaragtay ipan la dhahayo marka ipankan iyo swift code-kan iyo waxaas waa macnaha waxaa iska leh waa address banki ah isku dhahaa oo macnaha markii lacag la isku dirayo si internationally ah waxyaabo la isku maaragtay bangiyada isku ku community gareeyaan ay ku wada xiriiraan waa numbers ama sort code ay ku wada xiriiraan bangiyada marka lacag isku dirayo marka banki banka isla warqadda swift code-ka aad bangiga ka soo qaadatay ayay ku qoran tahay ayadana meeshaas lambarkaasaa gelinaysaa lambarkaas dheer ayaad gelinaysaa intaa markaa gelisid walaal submit ayaad dooranaysaa submit ayaad taabanaysaa marka waxaa information ah gelisid maaragtay submit ayaad dooranaysaa sidaas ayaa ku gelinaysaa